This act of aggression is aimed at encouraging fragmentation of the territory of Somalia. shirkii golaha guud ee ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la soo gabagabeeyay iyadoo guul taariikhi ah ay ka gaartay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya dhigada Israa'iil oo waday kala goynta Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. shirkan ayaa ahaa mid xasaasi ah oo si weyn indhaha loogu hayay isla markaana ay ku kala dab qaadanayeen Soomaaliya iyo Israa'iil hase yeeshee caalamka uu garab istaagay dowladda Soomaaliya iyo in midnimadeeda ay tahay muqadas iyo lama taabtaan sida lagu yiri go'aanka golaha amniga ee qaramada midoobay. Shiinaha, Ruushka, Ingiriiska iyo Faransiiska oo ah afar ka mid ah shanta dal ee leh codka qayaxan ee loo yaqaan veto power ayaa garab istaagay una codeeyay in qadiyadda iyo midnimada Soomaaliya ay tahay muqadas iyo lama taabtaan Soomaaliyana hal dal uu yahay sida ay ku sheegeen wakiiladii u joogay dalalkaasi fadhiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay. halka sidoo kale Mareykankana uu ka gaabsaday in aysan siyaasaddiisa waxba iska bedelin taasoo ka dhigan in ay taageersan tahay ama uu taageersan yahay Mareykanka midnimada dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Israa'iilna wuxuu sheegay Mareykanku in ay xaq u leedahay cidda ay xiriirka la samaysanayso taasoo mar kalena shaki kala gelisay in Mareykanka uu dhinacna Soomaaliya ku taageeray dhinacna Israa'iil uu ku taageeray. tobanka dal ee kale ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale taageeray Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoo mas'uuliyiintii ama xubnihii ambassadorada ee nagu matalayay kulanka guud ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay 10 lam ilaabana u dhigeen Israa'iil iyo Netanyahu taasoo caalamka dhex isaajisay fadeexad weyn iyo in diblomaasiyaddii looga adkaaday dowladda Yuhuudda oo waday qorshe ku kala goynayso dhulka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Danjiri Abuukar Baalle oo wakiilka qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya ayaa isagu si cad oo qayaxan u keenay cadeymo muujinaya sida Israa'iil ay u doonayso duni aan nabad ka jirin iyo sida ay u rabto in wadamada gooni istaaga ah ee caalamka ka jira ay marba maalin mid taageero u muujiso taasoo wax ka baxsan shuruucda caalamiga ah ee qaramada midoobay lagu heshiiyey in dal aan la kala goyn karin. waxa xiga waa in toddobaad kadib shir guddoonka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay la wareegi doonto dowladda federaalka Soomaaliya taasoo danjirayaasheena ku sugan qaramada midoobay ay iyagu noqon doonaan hal sano kuwa sii haya hoggaanka fadhigan golaha amniga oo ah mid ka mid ah kuwa golaha ugu muhiimsan ee jaangooya siyaasadaha iyo sidoo kale isidooyinka caalamka go'aanana ka qaata markaasi wadamada isku haya arrimaha amniga ee caalamka ee la horkeeno fadhiyada golaha amniga ee qaramada midoobay. danjirayaashii Soomaaliya ku matalayay fadhigaasina waxay muujiyeen wadaniyad isu kalsoonaansho iyo diblomaasiyad sarreysa oo caalamka ku qasabtay inuu si qayaxan u garab istaago Soomaaliya kadib markii ay soo bandhigeen sida ay caalamka sida loo burburinayo shuruucda caalamka Israa'iil ay duulaan ugu tahay dalalka nabdoon ee Geeska Afrika. arrinta la yaab kale waxay tahay Ruushka waxa uu golaha ammaanka uu ka sheegay inaan la faragelin karin arrimaha Soomaaliya waxayna xaqiijisay haweeneyda wakiilka Ruushka u ah golaha ammaanka qaramada midoobay in ay taageersan yihiin madax bannaanida midnimada iyo wadajirka dhuleed ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ruushka waa dal weyn oo quwad ama codka veto power ku leh golaha ammaanka ee qaramada midoobay marka loo eego wadamada awoodda qayaxan leh waxayna ka dhigan tahay in isaga iyo China ay noqdeen garabka Soomaaliya kadibna ay dalalka kale oo Ingiriisku ka mid yahay iyaguna codka qayaxan leh ay Soomaaliya garab istaageen kuna soo bireen arrintaasi. safiirka qaramada midoobay ee Soomaaliya danjiri Abuukar Baalle ayaa isagoo ka jawaabay hadaladii uu golaha ammaanka ka jeediyey wakiilka Israa'iil oo sheegay in xasuuq loo geysay dadka Somaliland. wuxuu sheegay inay tahay wax lala yaabo Israa'iil inay ka hadasho xasuuq iyagoo caruur haween iyo dhaqaatiir caafimaad xasuuq uga geystay marinka Gaza. waxa kale uu tilmaamay inaan la kala jari karin Soomaaliya oo wadaaga hal dal hal diin iyo hal dad. wuxuuna intaasi ku daray Somalilandtii uu xukumi jiray Ingiriisku waa laba gobol, gobolka waqooyi bari iyo gobolka waqooyi galbeed. hadda gobolka waqooyi bari waa qayb ka mid ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo la baxay maamulka waqooyi bari halka 45% dhulka ay xukunto Somalilandna uu yahay mid aad u kooban iyadoo dhanka Djibouti-na gobolka Awdal xuduud kale leeyahay oo saameynta gobolkaasi looga awood badan yahay dhanka Somaliland. tani waxay muujinaysaa in dowladda federaalka
tan iyo markii uu soo baxay warka aqoonsiga Israa'iil ay siisay Somaliland inay qaado dagaal diblomaasiyadeed oo kala har lahayn oo ay ka bilowday gobolka geeska ilaa iyo sidoo kale bartamaha Afrika iyo si guud waddamadii khaliijka waddamadii Yurubiyaanka ilaa golihii ammaanka ee qaramada midoobay ay saacad u garab istaagaan dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. guul weyn ayay tani u tahay Soomaaliya, Israa'iilna cashir lagu muujiyey fagaarayaasha diblomaasiyadda caalamka, lana tusay inaysan waxba ka ahayn dunida marka loo fiiriyo sharci darrada ay ku talaabsanayso iyo jebinta xeerarka iyo qawaaniinta caalamiga ah. La socda wixii warar soo kordha tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.